السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Maanta waxaan qaadanaynaa gross domestic product ama loo yaqaan GDP. GDP marka maxaa weeye? GDP waa alaabtii iyo servicekii oo wadani soo saarayay hal sano gudahood. Marka waxa lagu cabiraa GDP-ga waa economic activity-ga wadanka ka socda oo ah in wadanka dhaqaalihiisa uu korayo iyo inuu hoos socdo. sidoo kaleeto GDP goortii laga hadlayo waa alaabtii waxaan niri waxa weeye wadanka dhexdiisa lagu soo saarayay. Hadda tusaale ahaan waxaad gadatay oo waslad hilib ah ama neef baad gadatay. marka neefka waxa lagu darayaa GDP-gii Soomaaliya. waxaad gadatay waxa weeye kiilo yaanya oo ka soo goday Soomaaliya gobolka Bay oo kaleeto ama waxa weeye gobol kale ka soo goday baad gadatay hal kiilo. halka kiilo waxa lagu darayaa waxa weeye GDP-ga Soomaaliya. sidoo kaleeto dooro lagu xanaaneeyo Soomaaliya ukunay soo saaray baad gadatay. marka ukuntii haddii aad u cunayso waxa weeye aad markaaba waxa weeye aadan sii gadayn aad u cunayso GDP-ga lagu darayaa Soomaaliya. haddii laakiin waxa weeye ukunta aad ku samaynayso cake oo kale aad ku soo saarayso sawaayad oo kale ku soo saarayso waxa la samaynayaa lagu dari maayo waxa weeye cake un kaliya lagu darayaa. cake aad ka samaysay baa lagu darayaa oo meesha waxa laga cararayaa in wax mar hore la tiriyay haddana waxa weeye mar labaad oo double count inay dhacdo laba jeer wixii la tiriyay baa laga cararayaa. sidoo kaleeto GDP-ga goorta la xisaabinayo waxa la xisaabinayaa baan yiri waa wixii laga soo saaray wadanka gudihiisa. tusaale ahaan Soomaaliya dhexdeeda waxa ka iibsatay oo kaleeto baakad yar oo waxa weeye ranjiga shaha lagu karsado waxa laga soo dhoofiyay Kenya. marka GDP-ga Soomaaliya lagu dari maayo waxa lagu darayaa waa GDP-ga Kenya lagu darayaa. adoo Kenya jooga sidoo kaleeto waxaad gadatay waxa weeye waxaad gadatay oo kaleeto alaab laga keenay Soomaaliya. alaabta Soomaaliya laga keenay GDP-ga Kenya lagu dari maayo waxa lagu darayaa GDP-ga Soomaaliya. sidoo kale waxaan niri GDP-gu waa wax soo saar ka guud oo isugu jira alaabtii iyo waxa weeye servicekii oo wadankaas soo saaray hal sano gudahood. haddii waxa weeye guri cusub oo kale baa iibsatay guriga cusub aad dhisatay oo kaleeto guri cusub baad dhisatay guriga cusub aad dhisatay waxa weeye waxa lagu darayaa waa GDP-ga waxa weeye Soomaaliya lagu darayaa. haddii laakiin waxa weeye guriga uu celis yahay oo qaab celis aad ku iibsay GDP-ga lagu darmaayo oo waxa la xisaabiyay waagii la dhisay baa GDP-giisa la xisaabiyay. marka definition-kiisu waxa weeye waa total value of a nation output in a particular period of a time or a year. waa output-ka uu soo saaray wadan uu soo saaray hal sano gudaheed. marka markii la cabirayo ama la soo saarayo ama la calculation lagu samaynayo waxa la isticmaalaa qaacidadan loo badan yahay oo GDP wax lagu soo saaraa C oo u tahay consumption oo ah wixii waxa weeye dadkii shacabka wadanka ku noolaa ee waxa weeye quuteen oo iibsanayeen. hadda matalan shopping-ka aad samaysatay wixii aad shaha ku cabtay internet-ka aad isticmaasho kale haddii waxa weeye wadanka laga leeyahay baasho kaleeto sidoo kaleeto waxa weeye service-yadii kale oo lagu qabtay oo aad lacagta ku bixisay يعني consumption-kii dhamaa oo waxa weeye shacabkaas samaysteen
oo ah wixii surface oo loo qabto ay lacag ku bixiyeen iyo wixii alaabay gateen oo lacag ku bixiyeen baa misana waxa lagu darayaa ay oo u taagan investmentigii oo maalgashigii ay sameeyeen shirkadu si waxa weeye wax u soo saaraan matalan waxa weeye waxay dhisteen oo kale guryo waaweyn oo dhisteen oo kaleeto sidoo kaleeto waxa weeye productiga kaleetay waxa weeye maalgashteen oo kaleeto sidoo kale dadkii shacabka adiga ahaan waxa weeye guri hadaad iibsato waxa lagu darayaa waxa weeye waa investmentiga lagu daray hadaad ganacsi waxa weeye aad maal gashatay investmentigaas lagu darayaa sidoo kale waxa lagu darayaa G oo u taagan waxa weeye government spending oo ah wixii dawladdu ay kharashaad bixisay oo ah kharashaadka ku bixisay in public service ka bixiso oo kaleeto in waxa weeye waxbarashadii caafimaadkii dhisidii kaabayaasha dhaqaale inay wadooyinkii dhisto la boradii waxa soo kale ay dhisto in waxa weeye alaaba iyadu soo gadato in waxa weeye kharashaad ay gasho waxa weeye oo kaleeto ay ku bixiso difaaci oo kale ay ku bixiso oo diyaarado oo kale ay soo gadato yani iyana oo lagu daraya governmentigii wuxuu sanadka isticmaalay oo kharashaada baa misana waxa lagu darayaa net exportigi oo ah wixii aad dhoofisay baad waxa ka jaraysa wixii lagu soo dhoofiyay wuxuu noqon karaa minus buu noqon karaa wuxuu noqon karaa plus buu noqon karaa sida Soomaaliya oo kaleeto net exportiga waxa weeye minus buu noqonayaa Japan oo kaleetona waxa weeye waa plus waxa weeye intii banaanka u dhoofiso baa badan marka GDP gu waa inta GDP gu maxay waa wax soo saarkii guud oo hal sano gudaheed wadankaas soo saaray oo isugu jira productigii uu soo saaray serviceyadii wadanka dhexdiisa waxa weeye la qabtay sanadka gudihiisa adiga ahaan waa shaqeysaa waxa weeye maalin baad kuuli gash oo guri dhistay $10 ba qaadatay $10 waa la xisaabinaya oo service-ka ka mid ah marka GDP-gi waa inta waxyaalo goorta la xisaabinayo waxyaalo aan la xisaabin GDP-ga weyn misana baranay koo wax ka alaabta waxa weeye celiska second handska loo yaqaano sidoo kale la bahalkaymayo alaabta waxa weeye alaabta primary-ga oo waxa weeye waxyaalo kale in lagu soo saaro loo isticmaalayo sida waxa weeye tusaale soo qaadanay ukunta oo kale hadii bahalkii laga soo saaray keega ukunta la xisaabinayo keega kaliya la xisaabinaya sidoo kaleeto alaabta loo soo dhoofiyo wadanka alaabta wadanka loo soo dhoofiyo hadii waxa weeye GDP-ga lagu tarimayo oo GDP-ga alaabta lagu soo dhoofiyo GDP-geeda waxa xisaabsanaya wadanka ku soo dhoofiyo sidoo kale waxyaalaha illegal-ka oo dawladdu ogeyn oo kaleeto la xisaabi maayo oo mukhadaraadka oo kaleeto waxa weeye sida hoosta loo gadgado marka waxyaalahaas oo dhan la xisaabi maayo marka maanta casharkeena intaas ku soo gabagabeynaya waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.